gaar ugu mahadnaqayaa madaxda ugu horeeyo musharaxa madaxweynaha musharaxa ku-xigeenka madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga wadani iyo hoggaanka sare ee xisbiga dhammaantii xubnaha xisbiga taageerayaasha xisbiga iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadku waxay isweydiinayaan waxaan isleeyahay horta xisbiga saad ogtihiinba xisbigii kulmiye shirweynihiisii uu ku qabtay gobolka togdheer magaalada burco ayaan kaga tegey oo iskaga casilay xilligaa si mugle oo miisaan leh ayaan uga hadlay asbaabtaan iskaga casilay xisbigaa markaa maanta wax badan ku sii dheeraan maayo wax yar baan wax ka odhanaya waxaa muuqatay xisbigaa kulmiye iyo xukuumaddiisii inay dalkii qarankii jamhuuriyadda somalilan maamulkoodii in dhib weyne uu ka soo gaadhay inay ummaddii walaalo ahaa ee dalka ku noolaa ee ehelka iyo walaalnimada ahaa inay kala qaybiyeen oo kala firdhiyeen xisbigu wuxuu gaadhay inuu dalkii qayb dhami ay maanta gacantiisii ka baxdo oo aanay ka tirsanayn intii jamhuuriyadda somalilan ee kale xisbigu kulmiye wuxuu hadiimooyin u geystay jabintii ciidamada qaranka marka sidaa loo eego qaybintii bulshada halkuu ka gaadhay wuxuu ku kala tilmaamay bulsho dhan oo ka mid ah qaranka inuu ku tilmaamo cadowga gudaha waa nasiib darro anigu cadowga gudaha waxaan u aqaannaa hoggaamiyaha ciidankiisa jebiya waxaan u aqaannaa hoggaamiyaha cadowga gudaha waxaan u aqaannaa hoggaamiyaha dalkii qaybi farihiisii isagoo xukumaya ay ka baxday waxaan u aqaannaa cadowga gudaha cadaaladda iyo sharciga ninka bulshada xoog iyo cadaalad darro ku xukumee jeerasha ugu rida ayaa cadowga gudaha ah waxaan isleeyahay haddaan ka soo gudbo intaas waxaa dadku isweydiinayaa cabdo muxuu kulmiye uga yimi ee waddani ugu soo biira waxaan runtii ugu soo biiray xisbiga waddani ma fududa mana sahlana aragtidu markaan muddo dheer ama muddo badan daraasadaynayey eegayey xisbiga sharcigiisa iyo nidaamkiisa kala dambayneed markaan intaasi muddo ku soo jiray waxaan go'aansaday inuu yahay xisbigii dalkan ka saari lahaa tabaalooyinka maanta haysta xisbigii bulshada isu keeni lahaa ee hanan lahaa ee midayn lahaa waxaan u arkay inuu yahay xisbigii dalka inta ka maqan soo celin lahaa ee somalilan oo buuro ah oo dal iyo qaran jamhuuriyaddii somalilan oo isu dhan hantiyi lahaa markay sidaa tahay
waxaan aad iyo aad go'aan ugu go'aansaday inaan ka mid noqdo xisbiga rajada dalka. masraxadan uguma talagelin inaan wax badan idhaaha maanta, laakiin fagaarayaal badan ayaan dareenkayga iyo aragtidayda oo dhan aan ku soo bandhigi doonaa. waxa weeyaan maanta waddani wuxuu ku shaqayn doonaa sidaan u rajaynayo siduu bulshada u wada hanan lahaa. halkaa maanta wax ma yaaliin xisbigii aan ka midka ahaa aan ka midka ahaa asaasayaashiisa ee aan golihiisa dhexe ku soo jiray maanta wuxuu taagan yahay hungub markii uu dalka qalalaase ummadeed uu geliyey. wuxuu gaadhsiiyey inuu maalinba markuu arkay inuu dalkii aanu dadkii iyo bulshadii gacan ku hayn inuu maalinba tallaabo qaado uu ku kala dhantaalayo sidii loogu dhowaan lahaa doorasho qarankan ka dhacda oo badbaadisa. waddani waxaan leeyahay xisbiga waddani waa in dhammaanteen aynu guntiga isu xidhannaa qarankan sidaynu uga badbaadin lahayn maanta dhibaatada xoogga ah ee haysata oo ah inaan dalkii barhkii gacantaba ku jirin. waxaan ku soo gunaanadayaa degaanka aan ka imi ama gobollada bariga marka la xisaabtamo waxaa ka jirta dhibaato xoog leh. dagaalkii ka dhacay laascaanood waxaa loo soo raray inuu noqdo dagaal ciidamada madaniga la yidhaaho oo xadkii inta 150 laga soo kacay la keeno xadkii Soomaali gobolladii dhexe intoodii lagu soo ekaysiiyo. maantana ciidamo loo bixiye madani ay hor fadhiyaan oo dalka ay difaacayaan. miyaanay su'aal la isweydiiye ahayn ciidankii qaranka ahaa ee xoogga badnaa ee hanka iyo qabka lahaa halkay ku dambeeyeen? waxaan rajaynayaa tallaabadaa inuu waddani soo celiyo oo uu ciidankii dib u dhiso oo hankiisii iyo qabkiisii uu ku lahaa geeska Afrika uu dib u taabageliyo oo dib ugu soo celiyo insha Allah taala.